السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن لك التقي دونه هرت آد ugu badan tahay. Waxa soo jaabay wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka una soo jaabay Macron. Arrintaas ay islu taagi doonaa wixii dabcan ku yimid hadaladiisa. Iran waxay leedahay arrinta nuclear-ka iyo wax ku saabsan haba yaraatee liiskuna ugu ma jiro inaan ka wada hadalno Mareykanka. Dhinaca kale warqad ay Iran dirtay Mareykanka u dirtay. Warqadda maxaa ku qoran waa islu taaginaa. Aan ku bilownaa si hal mar arrintan cajiibka ah ee saxaafadda aad u hadalhayaan. وانن kala cararkii iyo yani isku dhaxyaaci iyo buuqi iyo miiskan halka ka toor kursiga halka ka toor ayadoo ay socoto oo hatta xaaskiisa ay oraday sida la sheegay ayaa oo iska fadhiya cunto cunaayano waa arintii Trump hadda markii la isku daa in la weeraro aday ka qasantahay ninka waa kaasa cunto cunaaya dadka fiiro halka qof ku dhuumanaya halkaas qof kale ku dhuumanaya وفي سكانتيسا معناها adduunka waxa ka socda wax iga magalin amal macnaha last moment yani dakhadaha ugu dambeeyay hadii la dilayo waa iska raxaysanaya oo kale yani oo soconaya marka wuxuu noqday hadal heenta ugu badan ee subaxan social media ka tagayna dhinaca kale waxa la soo warinayaa in Trump uu isugu yeeray kulan degdeg ah waliba ragga ugu sarsaray oo la kulmi doono waxaana loo badinayaa kulankaasi marka la fiiriyo qolka uu ka dhici doono arrimaha Iran in laga hadli doono maxay yeelay waxay u badan tahay arrinta Iran Mareykanka inuu labada maalmood ay soo socota oo hadal kaamil oo ka soo saari doono Iranna warqad dabcan ay u soo dirtay Mareykanka ama Trump ayaa waxa lagu sheegay in Iran ay u fidanayso Mareykanka adiga gacan oo ah waan furaynaa hormus sidan aan u furaynaa adinka waxa idinka doonaynaa sida in u furtaan macnaha dhaxda aan isugu imaano adinkana fur anana aan furaynaa laakiin waxa markaasi warqad ku qoran tafaasiil kala duwan oo aan la sheegin laakiin waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan qaabka ay Iran doonayso in ay ayada u furto iyo ayada sida ay doonayso in ayadana looga furo warqad intaas ayaa ugu muhiimsan ku qoran laakiin tafaasiil kale waxa ka dhacay iyo wixii Iran hadda ugu dambeeyay akhbaarta ay sheegayso horta hogaamiyaasha Iran kuwa hadda wada hadalada yani u xilsaaran iyo kuwa gudaha joogaba waxay ka midaysan sida akhbaarta soo dhacaysay sheegaysa waliba Pakistan ka imaanaysa in aan laga wada hadlin hadeertan Mareykanka aan lagu soo qaadin arinta nuclear-ka iyo uranium-ka ku saabsan waxay leeyihiin arintaasi qad cas ay noo tahay marka wax ay tahay in laga hadlo ma aha number 1 sida darteed hogaamiyaasheena ama hogaankeena waa sida hadalku u qoran yahay hogaankeena waxa uu naga mamnuucay in arintaas soo qaadno ka hadalno waa ay hogaankaasi dabcan waxa loo badanayaa sida leeyahay Mujtaba Khamenei in uu Iraniinta wada hadalka u yimid iyo wada hadalada dhanba inuu u diiday ka mamnuucay in laga hadlo nuclear-ka iyo uranium-ka wax ku saabsan marka arintaasi waxay falanqayaasha leeyihiin soo ma keenayso aan wada hadlin macnaha aan kala joogno maxaa yeelay Mareykanka hadafka ugu weyn ay doonayaan arintaas in Iran ay saxiixdo la joojiyo waana tay ku faaneen European-ka iyo ugu faaneen dealkii waagi aad galaysan tabcaan u ahaa annaga deal fiican keenayna dealka aan keeni doonana wuxuu noqon doonaa ay ku faaneen Mareykanka mid Iran 100% u diidi doona in nuclear-ka iyo waxyaalaha la midka ay samaysato marka Iraniintan waxay leeyihiin maba ka hadlaynaba ugu dambeyn arrintan aan dul taagno faahfaahino maxaa yeelay siyaasadaha caalamka isbedelka ay sameynayaan ay arrintan ku tusaysaa iyo waxa naftirkeena aan ka faa'iidi karna arrintan waxa shalay hadlay madaxweynaha Faransiiska Macron hadal dheer oo ahaa waxa ku jira hadalkiisa European leaders wake up madaxdii Europe war ka kaca waa jiiftaan sidan macquul nooma ahan sidan inaan ku jirna ma ahan waxa soo ka hadlay waxa kamid ah hadaladiisa marka and this is not sometimes President Trump is more explicit about the Europeans and could be more aggressive verbally but their strategy is just don't put the European interest at the center of their agenda. Okay, matter of fact. macnaha wuxuu ka hadlayaa dhibta haysata Europe horta wuxuu leeyahay Mareykanka madaxweyne Trump yani mar badan uu noo adkayaa waliba si aan munaasibeen oo la hadla laakiin hadda waxa noo soo baxday in Mareykanka ay ka batageenba in annaga ay nagu daraan waxyaalaha marka ay ka fakarayaan iyo istiraatiijiyadooda Europe inay ku jirto way ka tageen ko the point I think we are not here as leaders to make comments or on tweets or behaviors. We are here to act and decide. wuxuu leeyahay marka waxyaalaha ay soo qorqoraan Mareykanka ula jeeda Trump gaar ahaan yani iyo saraakiisha Mareykanka
waxba muhiima inaan yani ka falcelino oo aan maantana waxaan ku mashquulsanaano muhiimadeena waxay tahay ka madax ahaan in aan go-aan gaarno oo aan which makes sense for us, our countries and our continent is just to act, to accelerate, clearly to have more scale and speed, as I mentioned, in order to increase our independence. This is my obsession. So you think if a more predictable, let's put it, hadalka aada u weyn yahay wuxuu taagan yahay waa inaan ka madax banaanaanaa maraykanka maxaa yeele uu leeyahay siyaasaddii maraykanka isbedeshay 15 sano ee soo socday ee lasoo dhaafay waxaan arkayna uu leeyahay isbedel ku saabsan siyaasadda maraykanka iyo sida ay doonayaan inay caalamka ula dhaqmaan annagana sida ay noo fiirinayaan oo aada isu bedeshay wuxuu leeyahay marka waa inaan arrintaa iska siibnaa oo ka madax banaanaanaa okay arrinta way dheerta hadalku waa dheeryahay laakiin muhiimadda waxay tahay jawaabidda wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka. The president of France, Macron, goes to China, spends about 6 hours meeting with Xi Jinping, and then on the flight back, qaybta hadalka uu ka bilaabay naftirkeeda radin ah wuxuu leeyahay madaxweynaha Faransa China aaday 6 saacadood ayuu la soo joogay madaxweynaha China oo soo laabtay saxaafad oo la fariistay yani 6 saacadood lagu soo bedelay amal macnaha no talks to a bunch of reporters. And here's what he told the reporters. He told the reporters, number one, that it's time for Europe to break away from the United States. hadalkaasi asaga naftirkiisa waa radin kale wuxuu leeyahay 6 saacadood inta la soo bedelay wuxuu la soo istaagay journalistayaasha yani hortooda waxa ay tahay inaan ka xulowno maraykanka to depend on the dollar, not to depend so much on dollarkooda inaan ka tagno to dollarka become their own third superpower. The second thing he says, which I found really interesting, was that Europe needs to make sure that they don't get involved in conflicts that are not their conflicts. Specifically, that Europe should not be picking sides on Taiwan between the United States and China. And so I think this is a good moment for us to ask Europe, does Macron speak for all of Europe? Is Macron now the head of Europe? Is he now the most powerful leader in Europe? Because if he is, then there's some... macnaha wuxuu leeyahay marka haddii Macron uu sida u hadlaayo oo xataa taagan yahay annaga waxyaalaha aan noqosayn inaan galno ma ahan tusaale ahaan China iyo Maraykanka midna ma la jireyno oo China iska gadaaya oo arrinta Taiwan macquul nooma ahanba kuma jirno oo leeyahay waxaan idin weydiinaa leeyahay reer Europe ma arrintaasi la qabtaan oo Faransiiska ma asa idinku hogaaminaya oo isku ogtiin miya mise oo wax ku kaligiis ah wuxuu leeyahay soo tan annaga idinku caawino gargaar sidaas oo kale Ukraine iyo dagaalka aad kula jirteen Ruushka iyo wixii la midka ah things we're going to need to change. Number one, Europe, including France specifically, has depended heavily on the United States for 70 years for their own defense. In fact, when Macron tried to play global superpower... المهم wuxuu leeyahay intaasoo san ayaan annaga Maraykan ahaan idin caawinaynay Europe haddaad tihiin oo aad mar walba aad nagu tiirsaneedeen sida khatar hadda isaga dhigaysaan oo aad macnaha isu muujinaysaan sida madaxweynahan Faransiiska oo sameeynaayo kale macnaha wuxuu isu maleeyaa asaga hortiyo yahay sootaan annaga mar walba aad noo soo carari jirteen dhinac walba aadan joogi karin 70 sano la soo dhaafay ilaa annaga inaan idin gargaarna ma ahane almuhim waxay u eg tahay istiraatiijiyadda Maraykanka ee Faransiiskana ay sheegayaan inay nacamha xataa nidaamka kale soo socda inuu u noqon doono mid hadalada ama qaabka dabcan hadda ay wax u socdaan u wadi doona almuhim say kula tahay isbedelkaasi annaga Afrika ahaan isbedelkaasi sidee uu noo sameeynaya Soomaali ahaan sidee buu kula tahay horta yani intaas ku soo koobay salaamu alayhi wa